Su'aasha kale, Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Xasan Maxamuud oo jooga South Africa. Ustaad, su'aasheedu waxa ay tahay walwal haddii uu igu soo danso xitaa hal maalin haba ahaatee, jirkaygii ayaa laga dareemaa. Ustaad, maxaad igula talinaysaa? Maxaase sabab u ah dhibaatadaasi? Mahadsanid. Waa xaalad dabiici ah in qofka marka uu stress hayo in jirkiisii kale uu ka dareemo, xitaa in uu la qandhado waa arrin iska dabiici ah. Sababtoo ah qofka bani'aadamka hal meel ayaa laga kontaroolaa, waana maskaxda. Wixii maskaxda dhibaa ha noqdaan stress ama wax waliba, si toos ah iyo si aanan toos ahaynba, jirka qaybihiisii kala duwan ayay saamayn ku leeyihiin. Walwalka badanse waddada ugu fiican ee looga badbaadi karo waa istikfaarta, tala saarashada Alle, iyo in qofka uu yaqiinsan yahay in Alle waxani oo dhibka oo dhan inuu ka dulqaadi doono. Qofkuna waa inuu ogaadaa waxyaabahani walwalka ku hayo maalin kadib ama bil kadib inay ka tegi doonaan. Noloshuna sideedii hore ayay ku noqon doontaa. Haddii aad la dhibtooto, haddii aad la murugto, haddii aad la silecdo, maalmo kadib ama dhowr maalin haddii aadan waxba samayn, xitaa nolosha sideedii hore ayay ku socon doontaa. Stresska iyo walwalkani adduunka ka jira oo dhan, nooc walba ay noqdaan, waa wax bani'aadamku uu sameeyey. Waa inaadan stresska ama walwalka bilowgiiba aadan buunbuuninin. Waa inaad yaqiinsatid waxani in aad ka bixi doontid, wax weynna aysan ahayn. Waxaanse kugula dardaarmaya adiga oo kaashanaya istikfaarta, sababtoo ah nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee waxa uu leeyahay qofkii istikfaarta daa'ima, ciriiri walba ee uu ku sugan yahay, albaab lama filaan ah ayuu Alle u furaa.